maayarka maamulka magaalada Qabri Dahar si uu isna kalimaad noo yiraahdo culimada iyo xubnaha maamulka ka jooga maamulada kala gedsan dhalinyarada qaybaheeda kala gedsan iyo Ramadan charity oo kulankan sababtiisa lahayd oo isu keentayba asalaamaya qiimayaasha inoo soo dhigayna qoysaska waan raashin baan ku geynaynaa ay dhaheen yaa laga garan karaa inta 500 iyo 5460 baan maray meelaha inay yahay 5640 raashin xaafad oo ma dhigtaba macnaha iyaga transportigooda la baxaya iyaga iswada haya waxa weeye wax ay ma saaraw marka taas qof walba markuu halka arko in nin dan caama u taagan garab qabashu mudan yahay sabafal baan u socdaa nin le oo isagoo aan wax dantiisii rag badan waxaa jira iyo gabdho badan oo iska shaqaysanaya danahooda wata dantii la wada lahaa qofka leh waan u taagnahay waxa weeye runtii waa garab qabasho badan buu u baahan yahay dadka hayntoodu ay roon tahay xil baa saaran xilku kolba sida loo kala dareemo baa maaragtay loo kala waxtaroon yahay laakiin iyagoo faramaran bay dareemeen in xil saaran yahay oo dadkooda baahan inay inta waxaysa ay wax uga qaadaan ay isku dayeen kii waxayay qudhigiisu waxa weeye waxaa looga baahan yahay isna inuu xilkaa dareemo saaran ilaahay baa wuxuu haya u dhiibay waxaas ilaahay u dhiibay inuu wixii isaga lafihiisa uu u horumarsan lahaa oo maaragtay uu la wadaaga wiilashaasoo waana sadaqa iska qarsoon oo qofka raashinkaa uu tagaya kumaba ogaba midaa tahay war umu ahay marka iyagana waan bogaadinayaa innagana waxaan ku wada baraarujinayaa shakhsi iyo koox iyo maamulba in dhalinyartaas loo garab qabto aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ورسولك محمد waxaan islaahay kulley hawshani waa hawl aad guda ballaaran waa hawl runtii garab istaag iyo gacan qabasho inooga baahan hawsha caamku way inagu yar tahay inta badan waa in hawl caama laga shaqeeyaay waxaad moodaa bulshadu waxay uga dhaga nugushahay intuu khaas oo magac gaara leh laga shaqeeyo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يعني وحى إلهي سبحانه وتعالى وذنسيه وحكى بحية وحكى ديب وحى أنا أقصدنا كيسا حن ودردinku baqaadateen inaad indhaha laabataan mooyaane waxa adigu baqaadateen hadii lagu soo bixiyo hay isku day inaad sadaqa u la baxdo الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا الله واسع عليم شيطانكم وحو مارتay idinku yabaahaya faqri wuxuu idin tusahaya baahida mar walba ilaahayna dambi dhaaf iyo fadli iyo khayr buu idin tusahaya marka ilaahay shaytaan ay iska rab dhigina xagga ilaahay u carrow xagga ilaahay u baqda isaga qaata adduunyada waa laga tagayaa ayaamo weyn waxaadna uu iska dhammaan hayaa waxaad dib haysaana waxba maahe waxa hore u baxdo bani aadamku maalkiisu waa intuu cunay ee uu dhammeeyey iyo maraduu xidhay ee baaliyowday iyo intuu la baxay ee ka horraysa maalkaagu waa intaa laakiin intaad qasnada gelinaysa xidhxidhaysa ee isku daraysa ee kolba tiradeeda maaragtay aad ku celcelinaysaay waxaa laga yaabaa inayna xoolaba ku ahayn inayna xoolaba ku ahayn wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh وهو خير الرازقين وقال سبحانه وتعالى marka waxa loo baahan yahay in aynu inta badan nabiga kaleey salaatu salaam waa kale ruuxu markuu damco inuu sadaqada la baxo jubad baa jirta uu xaq kor ka qabo jubadu markuu isku dayay inuu qofka yaani wax la baxaya ila baxaba way ku dhagaysaa qofka yaani baqiilka iyada qabsanaysa iyada ku dhagaysa iyada u diidaysa waxa bixiyo qofka yaani ilaahay subhanahu wa ta'ala uu wasiga siiyay isagoo aan baqiilka ahayna way waasع noqonaysaa ilaahay weynaato markuu dambaysa qariso raadkiisa ilaahay ka qariso marka ay badan qofka bani aadamku
إلهي باشيغا وحول جعل وليبا حولها إساقا لفيسو كدمان يا إسكتا إنو عد كلا سيئو أو صدقاء آخر كيستين أنا شيدا نغيسين وحاكم داي يا وحلا بحايا أو قرصان هيا أو مارتي مالي نوبة هيا وآخر اللي يدادو إلهي أكتسي يا سر تغانا يا سر إساقا إلهي كدحيس يا حقا أولي بنا يا كم داي marka inta badan xoolaha intaan bixinaynay intaan haysano waxaan jecelahay intaan haysano mana aha sida nabiga kaleey salaatu wasalaam riba la qalay gurigiisa lagu qalay ridii baa la qaybiyay hal garaba nabiga loo soo reebay maxaad ka haysaabay ku yiri nabiga Aisha radhiyallahu anha intuu soo galay markaas waxay ku tiri dhammaan waan wada bixiyay oo dadkii waxaan inoo hayaa kaliya halkay garabka baan ku hayaa wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam dhammaan waan haysanaa ilaa garabka inoo reebtay mooyee intiisi kala inoo taala waa cagsi marka shaygaad bixisay baa wax ku kaad la hadheed adigu baaliyeeshay waxba ma kaad haysay ninka waaridkaaga u dhigtayna qofka adiga ku dhaxali lahaa uu haystana kaa waxa laga yaabaa inuusan macnaba ku hayn waxba ku hayn adig waxbana ku taraynin marka mar walba labada shay isgarab yaala midka aad horay marsanayso kaas adiga khayrkaaga ku jira laakiin nafta waxay jeceshahay ka yaalla guriga lagu xareynayo midka la dhigahayo ka qasnada la dhigahayo kaasay naftu jeceshahay laakiin in badan marka arrintanuna wiilashu wadaan dhalinyarada khayr Allah siiye arrin isku day u baahan arrin isku dayn iyagu laakiin garab istaag bay inaga rabtaa inagu rifayaal baan inta badan bulshadeenu ruuxii isku day qofka yaani halabuur kale waan rifnaa ilaa adigu kale uu noqdo ilaa uu soo garab fadhiisto qofka halabuur kale adduunyadu way badhigantaasha oo horay bay u wadaa oo dhiiri gelisaa oo wuxuu doonaysiisaa oo hadalka wanaagsan bay ku tiraahdaa laakiin inagu waxaan raadinaa dhaliilaha qofka meesha uu ka yar tagan yahay baan raadinaa markaas la yaabo inaan rifno oo ka saarno meeshaba ilaa uu soo garab fadhiisto marka taasuna waa mushkilad inay haysato waligeedna hore u dhaqaaqi mayno haddaan rifayaalka ahaa waxaa loo baahan yahay inaan noqono dhiirigeliyayaal ruuxa inaad dhiirigeliso haddaad wax dhiibi kartana u dhiib haddaad wax dhiibi karina khayr Allah ku sii wax badan baad wax fiican baad wadaaye hor soco ku dhinta isaga dhiirigelin bay u tahay aakhiradii adduunkana waad ku liibaanaysaa adigu markaan isku dayno dadka halabuur kale inaan garab istaagno si khaasad أحب العباد إلى الله أنفعهم لعباده إله أدومي سهول شعليهي أدومي سعيد ومنع في بدن ما أهكبوا عبادة بدن عبادة العظيم كويك لكن إله يقول شعليها أدومي سا أنت أدومي سا أنفعنا كل منع في قوم السجع دكا كلام أنفعنا معنى كلام يقول معها والعالمين مشروع عني إفطارك مسلمين مالك شباب ومشروع قاطان وقيلان طماطم في الأول صوتها. وحن شاء الله هنا واحد يدين كشكايو أسبوع هره وحن شغلي مقالة نيروبي مساجد 4 كنت في الشريك مركز مشروع عن وكالة لقيه وهي مركز فقط مساجد كاير يقولوا كان قرشها يكون